waxay la dagaalamayeen ISIS waana ciidanka hogaaminayay soo gelitaanka Kabul. waxay jebiyeen xoogagii Afghanistan waxayna la maamuleen Kabul. Mareykanka si xirfad leh ayaa loo tababaray waxayna fulin karaan howlgallo aad iyo aad u adag. magacooda waxa uu ka soo jeedaa dagaalkii Badr 313. waxaa ku wareegsan maanta sheekooyin badan kuwaas oo qaarkood sheegayaan inay taageero buuxda ka haystaan wadanka Pakistan. Badri 313 waa marayniska Taliban. tan iyo muuqaaladii hore dagaalyahanada Taliban labiskooda ugu weyn wuxuu la xiriiray ama u muuqday cimaamada ama go'a iyo khamiiska gaaban. mar walba ay ka soo muuqdaan shaashadaha warbaahinta waxayna ku socon jireen baabuurta waaweyn oo ay ku wareegi jireen waxaana ku taxnaan jiray dushooda rasaas. si kastaba ha ahaatee sawirada cusub oo ka mid ah dagaalyahanada Taliban ayaa muujinaya qaab ka duwan dagaalyahanada kale. gebi ahaanba caalamka ayaa arkay in ciidamadani si buuxda ay ugu qalabaysan yihiin darees ciidan oo rasmi ah iyo hub military, koofiyad iyo jaakad aan xabadu karin, kuna darsaday maaskaro iyo xitaa muraayadaha aragga habeenkii. haddaba waa maxay sheekada askartani? guutada Badr 313 ama ciidanka gaarka ah ee Taliban durbaba waxaa bilowday isbarbardhigga ay warbaahintu ku sameynayso Badr 313 iyo ciidanka Pakistan, inkastoo aysan jirin qiyaas dhab ah oo laga hayo ciidanka Badr. guutadan ayaa dhab ahaantiiba ka waxtar badan dagaalyahanada xarakada kuwaas oo ka qayb qaatay dhaqdhaqaaqyadii Taliban. waxay kaloo cadeeyeen inay yihiin ciidamada ugu sarreeya Afghanistan. asaaska guutadani ay warbaahintu ku tilmaamtay in la asaasay sanadkii 2015. tiro kumanaan askari ah ayaa loo doortay inay saldhig u noqdaan tababarka iyo diyaarinta ciidankani, waxayna tilmaaman yihiin dhammaan kuwa ugu sarreeya howlgallada. guutadani waxay gashay dagaalo badan. dagaaladii ugu waaweynaa ee gashayna waxaa ka mid ahaa weeraradii ay isku wajaheen ururka ISIS intii u dhaxaysay sanadihii 2007 ilaa 2020. sidoo kale waa madaxdii hogaaminaysay howlgalladii iyo dhaqaaqyadii ugu dambeeyay, halkaas oo ay dagaalyahanadiisu ku cadeeyeen waxtarkooda. asal ahaan si kastaba ha ahaatee awoodda dagaalyahanadu u leeyihiin inay adeegsadaan hubka ayaa laga yaabaa inay tahay wax lala yaabo. waxay soo kordhisay xoogaa shaki ah, halka dhowr warbixinood oo reer galbeedka ahi ay ku tilmaameen in guutadani ay tababar isku dabaridid ku qaateen gudaha Pakistan, taas oo ah sababta ugu weyn oo xirfadooda sare iyo xoogooda looga yaaban yahay. sida magacooda uu muujinaya waxaa laga soo qaatay dagaalkii Badr ee weynaa 14,000 oo sano ka hor, iyadoo ay ujeedadu tahay in la soo celiyo ku dhaqankii Islaamka. ma isleedahay guutadani waa udub dhexaadka koowaad ee ciidanka Afghanistan ee soo socda oo ay leedahay Taliban? ma u malaynaysaana in guutadan Badr 313 ay leedahay awood sidaas oo dhan loogu naaloonayo, mise waa iska marin habaabin warbaahineed?